galmudug ayaa isu tanaasul ugu jawaabtay Puntland doorashadii maanta ka dhacday aqalka baarlamaanka ee galmudug 6 sanatar ayaa maanta ka soo baxday magaalada Dhuusamareeb waxaa tanaasulay dhammaan xubnihii malxiiska u ahaa tartamayaasha dhabta ah haddii shalay Puntland ay tanaasul ku caanamaashay galmudug ayaa iyaduna maanta martay dariiqaas 6 xubnood ee aan ku saadaalinay warbixinteennii talaadadii ayaa dhammaan ku soo baxay kuraasta 1 cabdi axmed dhuxulow waxaa u tanaasulay nuur xasan guutaale 2 yuusuf geelowgaas waxaa u tanaasulay daahir faarax fiidow 3 siciid siyaad shirwac waxaa u tanaasulay maxamed daahir 4 samsam daahir waxaa u tanaasushay farxiye maxamed 5 cabdixakiin macalin axmed waxaa u tanaasushay ismahaan cabdi 6 duniye maxamed cali waxaa u tanaasushay qadra cabdulaahi 6 xubnood ayaa u soo baxay baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya iyagoo matalaya maamul goboleedka galmudug dhegey dhagdheer iyo samsam ayaa markii labaad ka mid noqday golaha aqalka sare ee baarlamaanka halka cabdixakiin duniyo iyo siciid siyaadna ay markoodii koowaad fariisan doonaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya marka laga tago hoos u dhaca iyo muuqaal xumada ka muuqata sanadkan tartanka aqalka sare ee baarlamaanka dalka haddana waxaan dhinaca kale sheekadan ku eegaynaa mataanaha siyaasadda dhegey iyo dhagdheer oo mar kale ku soo laabtay aqalka sare iyo waxa ay ka dhigan tahay labada nin waxaa ka dhaxeeya siyaasad ganacsi iyo dhalyo waxay wada socdaan in ka badan 20 sano waxay inta badan xilliga doorashada ku dhammaadaan hal musharax doorashadii 2016 waxay wareegii koowaad codkooda wada siiyeen cabdiraxmaan cabdishakuur warsame laakiin kuma aysan jirin kooxdii dhisaysa warsame ee waxay la noqotay dooq mararka qaar waxaa lagu tilmaamaa ragaan codku qiimo badan agtooda ka joogin laakiin markay wax maagan yihiin waa ka culus yihiin 2 cod sanadkan codku waa ka muhiimsan yahay doorashooyinkii hore ku soo laabashadooda aqalka sare waxay u taagan tahay inay odayaal wax badan bedeli kara soo galeen golaha waa 2 nin oo saaxiibada siyaasadeed ay leeyihiin iyo jeebkooduba uu wax weyn u tari karo musharaxa ay ku dhammaadaan marka laga tago inay 2 cod wataan waxay dadka siyaasaddu sheegaan inay ugu yaraan 10 kursi martigeliyaan doorasho walba oo ay jiheeyaan 10 kursi oo kala deegaan ah oo ay saaxiibtinimo iyo farsamo ku keenaan kadibna musharaxiin kala duwan ay u qaybiyaan waxaa la aaminsan yahay musharax ay sanadkan isugu tagaan inay 2 nin wax badan u tari karaan inay kala qaybsamaan siyaasad ahaan waa adag tahay sida lagu yaqaanay waqti dheer hadda waxay buddhig u yihiin kooxda waaye arag oo ay galmudug dhowr kursi uga soo baxday sidoo kalena xubno kale ka sugaya inay uga soo baxaan kuraasta aqalka hoose ee galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland xasan cali khayre waa musharaxa gadaal u fadhiya siyaasiyiintan bahwadaagta ah qorqor ayaa sidoo kale far u taagan tahay in xooggooda iyo codkooda la wada helo waxaa lagu qiimeeyaa 10 cod maxay kula taadiga